shirkadda socdaalka ee Sahal Transport and Logistics ayaa waxa ay bulshada Soomaaliland iyo shaqaalaheedaba ugu bushaaraynaysaa in maalinta koowaad ee ciidda iyo maalinta labaadba ay shirkaddan Sahal Transport and Logistics ay fasax ka tahay guud ahaanba shaqadii ay u haysay shacabka Soomaaliland waxaana si gaar ah ugu warramay warbaahinta dawladda Cabdiwaaxid Maxamuud oo ka tirsan mas'uuliyiinta shirkadda Sahal Transport and Logistics waxaana kamid hadaladiisii bismillahirrahmanirrahim tan shirkadda Sahal bulshada Soomaaliland ku wargelinaa in munaasabada ciidda awgeed labada maalmood ee maalinta ciidda koowaad iyo labaad ay shirkaddu fasax ka ahaan doonto shaqadii iyadoo aan ognay customer-keenu aad ugu baahan yahay haddana labada cisho ay fasax insha Allah ahaan doonto shirkadda waxay aad u shaqeynaysay 15 Ramadaan ugu dambeeyay aad ugu badnay marka gobolada u baxayna Boorum waxaan ugu badnaa iyo Wajaale marka aad u badnaa Wajaale ugu badnaan maalintii 5 gaari wati jiray Boorum mana 15 gaari maanta socodku dadku magaalooyinkooda ay u safrayeen marka qofka saaxiib ku noqonay magaaladiisii isoo socodku maanta aad u badnaa Sahal dhammaan shaqaalaha Sahal iyo maamulkeedaba waxaan ugu hambalyeynaa munaasabada ciidda fitriga aan leeyahay kullu caam wa antum bikhair waa Mustafa Axmed Samakaab telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa